السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن وناكسن إذا لحانتين باح داوضة يا شيء قيمة هي قدر انت مضنة دافع عالم كاحنا داوضة ميل كستات جوكتان حلو والبايدين تهي كسو دواذا تلفزيون كسيمة كنا سو دواذا برنامج قارة اوندين كسو ديارنا قلن جبينتا أرضي دوكسيغا الفلاح dugsiga halfalaax ayaa maanta munaasabad qalin jabin ah u qabtay ardayda dufcadii 79aad ee ka qalin jabisay dugsiga kuwaasoo dhammaystay fasalka 12aad qaybta natural science iyo social science ardayda qalin jabisay ayaa tiradoodu dhan tahay 114 arday kuwaasoo muddo 2 sano ah soo dhammaystay tababar waxbarasho oo ku saabsan xirfadaha iyo farsamada kaasoo socday sanadihii 2017 iyo 2018 ee tirsi taariikheedka Ethiopia tababarka ay ardaydu soo qaateen ayaa kala ah community and health service qaybta natural science-ga iyo waliba marketing and sales management qaybta social science-ga munaasabada qalin jabinta ayaa lagu qabtay hoolka qasriga boqortooyada ee Xayla Silaase ismaamulka Dirdhabe waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska waxbarashada ismaamulka Dirdhabe ugu horeeyo ku xigeenka madaxa xafiiska waxbarashada mudane Abubakar Cadoosh maamulaha dugsiga Al-Falaax ardayda waalidiinta ardayda qalin jabinaysa iyo marti sharaf kale mudane Abubakar Cadoosh ayaa sheegay in waxbarashada xirfadaha iyo farsamadu ay door muhiim ah ka qaadato diyaarinta jiil cusub gaar ahaan sida ardaydu u heli lahaayeen aqoon iyo xirfado ay kaga qayb qaataan horumarka bulshada waxaan hadaladiisii kamid ahaa sida tan waxa kale oo aad ugu mahadinayaa saaxiibkay Maxamuud Khayre oo anoo ardayo ninkan ila da'ana iskuulka markaan dhiganayay wax badan iga caawin jiray oo dhihi jiray marbaad Ethiopia u shaqaynaya wadanka ka tagin hadda inuu joogo maan ogeyn markaan imanayay aad baan ugu farxay inaan la kulmo oo taariikh badan nooga shaqayn doono waxa kale oo aad ugu mahadinayaa wasaaradda waxbarashada wakiilada igala socda laydku hadduu naga xumaado fiishta iyo koraanka inaan istaabsiinin baa dhici karta guryaheena cilmigan gurigana fadhino jibsankiisa samayntiisa naqshadayntiisa waa aqoon la barto marka farsamada gacanta aad barateen shahaadadii maanta aad qaadanaysiin baritoole jaamacad bay idin bilaysaa laba albaab baa inii furan inaad jaamacad toos u gashaan iyo inaad farsamada gacanta meel weyn ka gaadhaan marka waxaan leenahay waalidiintii nagu soo daashay iyo macallimiintiiba iyo dhammaan annaka oo wasaaradda guudka kala soconay taakulaynta iyo turxaan bixinta waxbarashada habdhaqanka ardayda muddo badan ka wada shaqaynaynay waxa qura ee maanta halkan aad ku soo gaadheenna waxay tahay samir iyo adkaysi iyo dhaqankii fiicnaa ee wasaaradda muujiseen iyo xafiiska iskuulkiina marka waxaan leeyahay bagaad nabad ku soo gaadheen maanta bagaad qalinjibintiisii ka soo qayb galnay annagu waxaan garab taaganahay ilaa maalinta aad galaysaan jaamacad waxaan garab taaganahay ilaa maalinta aad farsamada gacanta ka mira dhalinaysaan maamulaha dugsiga Al-Falaax ayaa ka hadlay muhiimadda munaasabada qalin jabinta iyo doorka ay waxbarashada xirfadaha iyo farsamada ku leeyihiin mustaqbalka ardayda waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la dhiirigeliyo waxbarashada noocan ah si ardaydu aqoontooda iyo xirfadooda uga faa'iideystaan naftooda marka waxay ka dhigan tahay sanadka dambe dugsigu wuxuu si doonaa 8 jir 10 sanadood ugu horeeyay dugsigu markuu 10 sanadood ugu horeeyay jiray ardaydii dhiganaysay baa nala joogto Maxamed Khayro oo madax sare ah oo xilal waaweyn ka soo qabtay shirkadda tareenka waxa loo jiray dhabbada xadiidka ee tareenka mas'uulka sare ee haysta ka ahaan jiray farxad bay ninkaynii tahay taariikh bay nii tahay xus bay nii tahay waa wax lagu farxo arday kale oo dhakhtarra dhigataana la jooga Kamaal iyo tiimkiisii iyaguna sidoo kale farxaday nila wadaagayaan waalidadii baa nila joogo nila farxayo dhamaantii waxaan leeyahay hambalyo assalaamu calaykum ugu dambeyntii ardayda ka qalin jabisay dugsiga Al-Falaax ayaa iyaguna muujiyay farxad iyo rajada ay ka qabaan mustaqbalkooda ayaga oo sheegay in waxbarashada iyo tababarka career and technical education ay u horseeday aqoon iyo xirfad muhiim u ah noloshooda iyo shaqadooda mustaqbalka magacayga waxa weeyaan Yaxya Cabdillaahi Cumar Furre arday kamid ah Xaaji Cali oo sanadkan dugsiyeedka 2016 ka dhigta Xaaji Cali horta wallahi runtii way adag tahay waxaan ku qiimeeyaa dareenkayga marka dadaal adag
habeen dhafar iyo stress badan iyo patience badan oo intaan dadaalkan ku gaarnay taasoo aan isku garabsiinay anagoo saaxiib iyo saaxiibada wax ugu wanaagsan ee la samaysto marka ayagoo na garab taagnaa anagoo isla akhrisanay iyo si duubaana aan isku dadaali jirnay marka waxaan oran lahaa waxa ka dambeeyay dadaalkayga asxaabta iyo waalidiinteedu aad ii dhiirin jirtay siiba hooyaday halka maan ka salaamaya maadadan healthcare horta aad iyo aad bay u fiican tahay waa maado laba dhinac naga dhigaysa dhinacii caafimaadka naga dhisaysa iyo talabaadna waa si maxaa la dhahaa farsamo ahaan baa ku shaqaysan kartaa marka waa maado aad iyo aad runtii aad baan uga mahadcelinayaa dowladda oo nagu soo dadaashay oo budgetka ku bixisay oo maadooyinka inaan helno soo gelisay manhajka runtii aad buu mahadsan yihiin waa maado aad iyo aad u fiican oo dhinaca caafimaadka aad waxyaalo badan nooga taageeraysa iyo nankii marka hore caafimaad ku siiyay mijina caafimaadka inaan ugu soo runtii wax aad aan ugu farxnay bulshada runtii waxa kaliya ay waxaan u baranay waa bulshadeena si aan u caawinaa meel aan u gaarsiin lahayn runtii iyakuna aad bay noo la dadaaleen haday qoyskeena tahay kulli qoyskeena waa qayb ka mid ah bulshada marka runtii waxaan leenahay bulshadeena si aan had iyo jeer aan u caawinay aan u taaganahay horta magacaygu waa Salma Cadosh Daahir okay maanta waxaan halkan u imanay dadaalkeena intaas oo cishaan la soo rafaadnay imtixaanaadka macallimiinta dadaalkooga waliba maanta waxaan ka soo qalin jabnay maado aad iyo aad dadka Soomaalida wax aad ay u baahan yihiin inay bartaan inta badan ardayda marka caafimaad la yiraahdo way cabsadaan laakiin maadada markaan aragnay waxa noo noqotay wax fudud oo faa'iido leh in la barto nolol maalmeedkeena wax weyn bay ka qaban kartaa deegaankeena iyo bulshada aad bay waxtar u leedahay maadaama waxaad baranaysaa waxyaabaha emergency-ga imika bulsho dhex joogto hadduu qofii wax noqdo ama iscaafaat al-awwaliya baa la yiraahdaa ayaga wax badan ugu faa'iidi kartaa qofkan maxaad u qaban kartaa intaan dhakhtar gaarin maxaad u qaban kartaa maxaad ku sii badbaadin kartaa laga yaabo in qofka noloshiisa badbaadiso waxyaabo badan oo aad saa waxtar leh ayaan baranay maadada caafimaadkana awal waxay noo ahayd maado adag laakiin markaan wallahi baranay wax fiican bay noqotay oo fudud la yiraahdo horta gabdho inta badan caafimaadka wax la yiraahdaa kuma fiicna ama xaga caafimaadka sida uma fiicna laakiin gabdhaha waxaan imika leeyahay caafimaadka inaad baratiin adiga waxtar ku tahay adiga dhanba waxtar ku tahay adiga marka laga soo koobo bulshadaada ayaa waxtar u leedahay marka gabdho waxaan leeyahay dadaalkiinu marna khasaari maaye ka faa'iideysta waqtigiina wax walba ku dadaashan khasaare ma noqdo marka gabdho u dadaal naftiina iyo bulshadaba munaasabadan ayaa ku soo dhamaatay farxad iyo bogaadin loo jeediyay 114 arday ee ka qalin jabisay dugsiga Al-Falax ayada oo loogu rajeeyay mustaqbal wanaagsan guul waxbarasho iyo inay aqoontooda iyo xirfadooda uga faa'iideystaan ama uga faa'iideeyaan bulshada وهاجاك داود يال وانا انت برنامجكي جارك عن دين كصوت يارنا قالين جبينتا دوكسيجا الفلاح برنامج كانوا حيدين صوت ديار سيان جوسينا بحمد دنك كاميرا ده واسماعيل هبا انت برنامج كانوا واسماعيل برنامج كان برنامج كحيجين تانا كل متونا نولي كلنتي